سحرت هبل حقي جوجا من هبلايو طبعا كان نمبر موبايلك استعماله ما قرنيسا over the phone تلفونك لو سو مرنيا سحرك هالو مدالميا maxaad oranaysaa ha sixirka waxay ku xirayaan kelimada ha ereyga ha ama english ku dheh ama carabi ku dheh ama soomaali ku dheh waxa doonto ku dheh madaala markii lagu yiraahdo ha ba oranaysaa qab wala diminaya taas waa qab kale waxa jira inta lagu soo waco lagu afuufayo wixii lagu akhrinayo wixii aan ku sheegayo oo tabacu ma tatlu shayatiin aan shayaatiinta wararka oo arrimo ay kulay ilaahay iyagu ogyahay oo shayaatiintu isticmaal bareen waxba lagu afuufaya markiiba dhigta laga geliya sixirkii jirka u gudbaya ha Facebook la soo diri karaa email baa la soo diri karaa Snapchat sawir baa la soo diri karaa clip sawir lagu soo diray ama qoraal lagu soo diray baa lagu leeyahay fiiri akhri waxa kan waad furaysaa furista afurtay sixirka indhihi baa ku qaadaysaa sida dhagta ugu qaadayso oo kale bal hadda waxaan badhihi karaa waxyaabaha qaar ku hadda inta dadka daaweyn aan ku arko waxa kamid ahaa in lagu diri karo filmaanto kale geemamka ciyaalka kale very addicted ku noqdaan oo kale to waxa sixirka qasab ahaan jiray timaha qofka la sixrayo cidiyo qofka midaan dharkii uu ku dhididay kabihiisi waxyaabo noocaas in la keeno oo sixirka lagu sameeyo jinka la adeegsanayo marka la dirayna iska ahaan jiray kuwa iska marka fiirso iyaga dadkooda casriga la socdo iska ribaadiya wax badan aan ogeyn hadda technology-ga socdo darteed oo maadaama bini'aadamku advanced technology gaaray oo technology horumartay jinkiina waxa is leedahay sidoo kale bini'aadamka dusan ka horeyninba waa la socdaa marka hada technology-ga laga faa'iideystaa qaabka loo sameeyo sixirka iyo qaabka loo gudbiyo labadaba sidii hore ka duwan yihiin waxyaabo waxa jira la yiraahdo basiira oo aan aad u adeegsado isticmaalo oo uu imaan doono insha Allah taala jinkiyo caadi loo arkayo aragti caadi la isticmaalayo oo qofkii uu caadi u arkayo hadii noqoto sixir hadii noqoto il hadii noqoto jin kullu oo soo socda insha Allah taala iyo jinka iyo sixirku saddexduba waa jin ومعنا سدحنا markay dib ka geysanayaan waxa caawiyo kaalmeeyo wajinka يعني shaqada qabanayaan ba kala duwan laakiin xaga macnaha waxay yihiin waa ka siman yihiin wajin kulligood waa sida bini'aadamka kale taxi driver-ki waa bini'aadam police-ki waa bini'aadam makaanigi mesela waa bini'aadam dhakhtarki kulligood waa bini'aadam laakiin uniform-ka oo kala duwan iyo shaqada qabanayaan asalkoodan waxay ka wada yimaadaan abuna aadam alayhi salaam saasoo kale isha iyo sixirka iyo jinku kulligood waa jin laakiin shaqada qabanayaan ba kala duwan mesela hadii sixir la yiraahdo kaleeto sixirku inta badan waa ciidan la soo diray oo shaqo loo soo diray qabtaan wixii adiga markaa loogu tagay in lagu sameeyo sixirolihii amraya jinki inay sameeyaan waa dad amar la soo siiyay ciidan ah tababar haysta uniform xiran kala dambeeya group ah ishu waa qof ama labo ama saddex intii ku fiirisay wixii ka soo gaaray ishu waa laba nooc mid waxa la yiraahdaa xasad waa qof nolosha ku diidan ama wax ka masayray mid masayr ku timaado way hadda ay sheegayso midna waa wax la yiraahdaa cayn oo waxay ka timaadaa inta badan qof ku jecel iyo qof caadi ah waa ka timaadaa yani marka qof ku fiirsho مثلا وحاسد حبوك واركي qofkii wuxuu dareemayaa ciridi chestigiisa uu dhibsanayo wixii nimcada ilaahay ku siiyay ku siiyay ciridiga markuu qofku dareemo negative energy baa ka soo baxaya ishaas qofka u socota baa shayaadiintu raacaya yani jin independent ah oo banaanka jooga ishii baa marka ishii ku soo aado isho qaabkeeda ilaahay subhanahu wa ta'ala oo garanaysa oo samaysan tahay marka ishii ku soo aado baa jinkiina soo raacaya ishii oo kugu dhacday jin group oo la socdo shayaatiina kula soo galaya inta badanna waa nooca ugu xun waxay noqotaa sixir oo wax meesha ay Soomaalidu ka keentay ishu sixir bay noqotaa yani waa group wada socda oo hadhowtiina network samaysanaya ay ku wada shaqeeyaan oo dhibkii lagu geysto marna waa il caadi ah ishii baa soo baxaysa oo form in leh ku soo galaysa xanuunkii iyo dhibkii iyo shidadii iyo calaamadii waa ka siman yihiin